waxaa dib u habeen lagu sameeyay adeegyadii dhinaca caafimaadka ee uu bixin jiray Cisbitalka Alxayad ee magaalada Boorama. dib u habeentani ayaa waxa ka mid dhaliyay kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Camuud waxaana ay horseedaysaa in adeegyadii caafimaadka oo tayo leh dadweynaha loogu diyaariyay cisbitalka sida uu sheegay agaasimaha cusub ee Cisbitalka Alxayad. We, the family of Alxayad Teaching and Research Hospital, welcomes you to a free medical services which will start from 28th this month, that is November, to 27th December. We'll offer free outpatient services for all the patients who will be visiting us during that period. Alxayad is our promise because we promise life. dhinaca kale hormuudka kuliyadda daawada iyo qalliinka ee jaamacadda Camuud Dr. Ismaaciil Xaaji Maxamed Aaye oo isaguna dadka ugu bishaareynaya uguna baaqaya inay ka faa'iideystaan adeegyada uu bixinayo Cisbitalka Alxayad ayaa waxa uu sheegay in muddo bil ah oo ka bilaabmaysa maalinta Sabtida ee bisha November ay tahay 28 baadhitaanada bukaan socodku ay yihiin mid lacag la'aan ah. Cisbitalka Alxayadna laga heli doono dhammaan dhakhaatiir takhasusudoodu ay kala duwan yihiin waxaana isagoo arintaasi faahfaahinaya waxa uu yiri anigoo ku hadlay afka Camuud University College of Science waxaan maanta halkan ku soo dhaweynaa dadweynaha ku nool Soomaaliland dhammaantood gaar ahaan magaalada Boorama nasiib u yeesheen in Camuudi University ama jaamacadda Camuud ay dib u qaabaysay Cisbitalkan Alxayad awood badan ay saartay una noqon doono laga bilaabo berito Sabtida soo socota 18 bisha inuu shaqadiisii si buuxda u qaban doono. Cisbitalka waxaan ku talagalnay inuu noqdo cisbitaal servicekiisa ama wax qabadkiisu uu aad u sareeyo oo ay awood jaamacadda Camuud awoodeeda isku geyso haday tahay ma taqaana dhakhaatiirteeda iyo hawladeennada caafimaadka jaamacadda Camuud oo dhan dhammaan jaamacadda dhakhaatiirta Soomaaliya joogta magaalada Boorama oo 90% ka tirsan Camuud University 9% ka tirsan kuwa yar iyo kuwa weynba halkan ayaad ka heli doontaan laga bilaabo hadda wixii ka dambeeya anigu kookahay Dr. Warhad ku ogtiin Cabdicasiis Warhad Dr. Hodan Saleeman biyo caruurta Dr. Cabdiraxmaan Duuse يعني دكتور بوحنة دكتور جحير بوصل كوب دمان دكاترة قبل كأوضة كل صغار بقول كي بس عشان ومعلمين تاج جامعة عمود هل كان أي كون جريدونان لقب بلابو سبت صباحنا ومد خسيرة تقبشنا ومتقال إسبتالكو سي لخربي وشقين دونا عد والباء وبهاينا ويمن دونتا لا ميجيبه وصميسان بريش كيبه وصميسان ترانسبورت كيبه فيا يا ترى ma jirto kama magaalada qaybta bariga oo dhan marka loo galbeedka eegto Cisbitalka Boorama ku yaalo waxa ugu dhow ma taqaana Cisbitalka Alxayad maanta caqabadaha hortaagan ma jiro de aqoontii gobolkan halkaan isku keenay halkaan ka shaqeyn doontaa biidmilaahi kariim waxaan iyadana kugu bilaabaynaa bisha u horeysana bukaan socodku waa free kaad ma jiro lacag ma jirto halkan ayaa wax ku doontaa iyadoo free marka waxaan jecel lahay in si fiican ku bulshadu uga faa'iideysato jaamacaduna saas ay diyaar u tahay laga bilaabo Sabtida ilaa iyo muddo bilana awd bishku free buu noqonay waa Jamaal Umar Tubeec Televisionka caalamiga Baddacas24Tv magaalada Boorama ma ogtahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'iidi karto ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarino cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab microwave TV-yo iyo moobilo dhammaan shirkadda Samsung ah account lacag ku jirto oo banka dahabshiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada Damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidhmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha
si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111 hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom